sanadii 4 hijriga waxaa shahiiday amiirkii mu'miniinta cali bin abi taalib. waxaa dilay ninkii khawaarijta ka tirsanaa cabdiraxmaan bin muljim. waxay ahaayeen 3 khawaarijta ka mid ah oo ku kulmay Maka. waxay ku ballameen dilka cali bin abi taalib, mucaawiya iyo camr bin al-caas. cabdiraxmaan bin muljim wuxuu dhahay igu daaya cali, barakna wuxuu dhahay mucaawiya igu daaya, kii saddexaadna wuxuu dhahay aniga ku aado camr. waxay ku ballameen inay soo dilaan ama ayaga la dilo. ballanta fulintana waxay ka dhigteen 17 Ramadaan. kadib nin walba wuxuu aaday halkii ay joogeen saxaabada. cabdiraxmaan bin muljim wuxuu yimid Kuufa, kadibna cali ayuu madaxa uga dhuftay seef sumaysan. cali wuu dhaawacmay. markii loo soo geliyay cabdiraxmaan, cali wuxuu dhahay cuntadiisa wanaajiya, firaashkiisana u habeeya. haddaan noolaado dhiiggayga anigaa ka hadlaya, haddaan dhintana iga daba keena, ilaahay agtiisa ayaan isla istaagaynaa. waxaa kaloo la soo wariyay markii uu dhaawacmay cali inuu dhahay ilaaha kacbada ayaan ku dhaartay, waan guulaystay. kadibna wuu dardaarmay. kadibna wuxuu dhahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kadibna muusan hadlin ilaa waa shahaatay. kadibna wuu geeriyooday radiyallaahu canhu. cali wuxuu ahaa nabigeena adeerkiis iyo zawjkii gabadhiisa Faaduma oo ahayd dumar midda ugu sharafta badan. sidoo kale wuxuu ka mid ahaa 10kii loogu bishaareeyay jannada. dagaaladii uu nabiga la galay waxaa ka mid ah Badr, Uxud, Ghaswatul Khandaq, Khaybar iyo furashadii Maka, Xunayn iyo Taa'if. laakiin Tabuuk muusan la xaadirin oo nabiga ayaa wuxuu uga tagay Madiina. nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay maalinkii dagaalkii Khaybar, bari waxaan u dhiibi doonaa raayada nin ilaahay gacmihiisa ku furi doono, macnaha sabab u noqon doono furashada Khaybar. ilaahay iyo rasuulkiisa jecel, ayna jecel yihiin asaga ilaahay iyo rasuulkiisa. wuxuuna u dhiibay subaxii cali bin abi taalib radiyallaahu canhu ardaa.